ودتك برتة كعمل فلا كوا كلنا درجته إلى هوس أهل القرآن بابا لورنا دتك بكرح موقنا كربو قاضي يا أبو الكتاب كان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت أويت هاي مالين سبتي بيش سفر وحوي طويل لباتن كذا كن أفر بقول لحية فرتن هجريد النبي عليه الصلاة والسلام وحين السجون مدوني هل كان ما أنت عن السجون مد حفلة القرآن الكريم كا وقبنا يوم مركز إقرأ مقالة عبشة دقمة بابلي قول كفافا ما السجون مادو يوحل السجون مادو وحين السجون مد وهذا الكيلاهي والله ما موصى كو marka labaadna dadkii ehelka u ahaa hadalka Ilaahay iyo kalaamkiisa inaan ku maamuuso in galabta halka walaalayaal saan wada ogsoonahay nimco kasta Ilaahay baa bixiya wama bikum min ni'matin famin Allah waxa aad ku sugantihiin oo nicmo ah xagga Rabbi bay ka ahaatay buu Rabbi Ilaahay subhanahu wa ta'ala nicmo Rabbi uu bixiyana waxa ugu qiimo badan ugu qaalisan ugu wanaagsan islaamnimadka inuu qofku Ilaahay uu ka dhigo qof muslima oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala aaminsan oo mu'min oo muwahhida nicmadaas islaamnimadka ah waxa kale oo weheliya oo nicmo weyn iyaduna ah tan galabta u fadhino kale inagoo muslimiina dayarteeni iyo caruurteeni inay kitaabka Ilaahay bartaan dabeetana gaaraan heer la maamuuso oo shahaado quraanka inay dhameeyaan tusaysa in la siiyo iyaduna waa nicmo kale oo mahadnaqeedii u baahan Ilaahay baa subhanahu wa ta'ala aan ku mahadinaynaa inuu muslimiin naga dhigay waxa kale oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku mahadinaynaa inuu kitaabkiisii uu noo fudeediyay inaan baranno Ilaahay baa subhanahu wa ta'ala horaysiya dambaysaba mahad iska leh rabbana lakal hamdu fil ula wal aakhirah ayaan leena Ilaahayow horaysiya dambaysaba mahad adiga iska leh muslimiin baa naga dhigtay kitaabkaagii baad noo sahashay inaan baranno dadka maanta nuurayeen hor fadhiye ubadkeena iyo caruurteena sida quruxda badan maanta noo hor fadhiyeen maamuusayno waa dadkii hadalka Ilaahay bartay way Ilaahay subhanahu wa ta'ala aayadkiisa wuxuu ku sheegay dadka kitaabkan weelay inay yihiin ahlul cilmi bal huwa aayatun bayinatun fi suduri alladhina utul ilma bu Ilaahay quraanka ma idin sheegaa bu Ilaahay waa aayada cadcado ku sugan laabaha kuwa cilmiga la siiyay ku sugan bu Rabbi subhanahu wa ta'ala inaad kitaabkiisa barato dabeetana haddana aad qalbiga aad ku hayso calooshaada quraanka iyo laabtaada kuugu jiraay nicmo ka sareysa ma jirto nabigeena alayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay xadiiska saxiixayn wada garanayno الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة أبو النبي عليه الصلاة والسلام قف قرآن كحفظية حافظك أسفي عن حريفك كنا وضع قرآنك وتلاودي سنة اسكها قاتشية تجويد أهان حفظهان اسكها قاتشية قرآنك أسفي عنه وبرتا وحول الدرجية هاي ملايكة ونواكسين السفرات اللي يرادو أولما بارين تايو الدرجية هاي والنبي عليه الصلاة والسلام وحيرك لقو قاري هاي وكتابك إلهي نبي نوح نوشك عليه الصلاة والسلام إن إلهي سبحانه وتعالى ذاتك قاركود إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين كتابك الله دولي يقولون إلهي سبحانه وتعالى قدر كودي الدرجدو يا ماموس كإليه مكرب وقاضا بسبب هذا الكتاب أهل القرآن بابا لورنايا دادكي بكرح موقنايان حامل القرآن حامل راية الإسلام وي ودادكي عالم كإسلامات كالسيدي وي دادك أهل القرآن كي إلهي سبحانه وتعالى درجدو في الدنيا والآخرة كرب وقاضا يا أبو الكتاب كان ودادك برتة كعمل فلا كوا كلنا درجدو إلى هوس وقولي في الدنيا والآخرة وكوي كتابك كتشي سدي كعمل فلين منين بران كمين عمل فلين كتابك إلهي معرضين بين نقدين وكوا كتشي بين نقدين كوا أصلا درجدو إلهي سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة هوس وقولي marka maanta deenu kitaabka Ilaahay darajadiina kor u qaado waa inaga arkayna dadkii waad ka shaar duwan tihiin waad ka dhar duwan tihiin waad ka farxad duwan tihiin maanta idinku oo waxa isugu kaaya yeeray farxadiina waxa weeye inaad kala qayb qaadano idinka annaguna waxa weeye farxadda idin la wadaagno baad noogu yeedheen farxadiinu meel sare maraysa taas waxay tusinaysaa kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala intaan aakhiraba la gaadhin haddaad wax ka sii dareemaysa bushra caajila bishaarad degdega yaaba halkan lagu dareemay qofka kitaabka Ilaahay bartay iyo qof kale isku noocba ma aha muuqaaga xataa quraanku waxbuu ka bedelaya noloshaada waxbuu ka bedelaya maalintaadu dadka kale way ka duwanta maalintooda habeenkaagu waxa dadka kale habeenkoodu uu ka duwan yahay maalinta kitaabkaas aad akhriyaysaa ma macallin baad ku tahay ma arday baad u shilcinaysaa ma adiga ardaya habeenkiina waxa weeye taquumu bihi kitaabka Ilaahay markay dadku seexdaan adigu waad ku tukanaysaa noloshaadii uu bedelaya quraanku